calankan yaa iskale waa astaanta dalkeena calankan yaa iskale waa astaanta dalkeena ويحما هديدي وانا قدونيو حقا يقيل دوسي كوي دلاعيو ويحما هديدي وانا قدونيو حقا يقيل دوسي كوي دلاعيو عقدالكو 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 dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshay dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshay rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne ربي هيدن داي ويدن دبقلينا ربي هيدن داي بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقاشان علي aadan shuuriye taliyaha guutada 14 Oktoobar sida la socotaan ayaamahan waxa ku jirnay howlgallo gobolka Shabeellada Hoose qaasatan degmada Awdiigle oo hadda ku sugannahay dagaaladii soo qaadnay ilaa iyo hadda wax iska caabin oo xoogan oo ala kulana ma lahan maleeshiyada gobolkoodii waa sii dhacaya wax awood ay hadda leeyihiin ma jiro isku day yar sameeyeen waa fashilinay ilaa iyo maalinka maanta inta ila wareediyo ku kalsoonahay ku dhow ku heleeno waxa qasaar gaarsiinay ilaa iyo 60 meeyo waa kaga geeriyoodeen dhaawacoodina kontomeeyo kor u dhaafa ilaa iyo haddana howlgalkii waa sii socdaa oo hadda waxa ku sugannahay degmada Awdiigle dadkii shacabka deegaan guryahoodii iyo dukaamadii iyo cadaadiskii loo korhayna waa ka dulqaadnay sida la socotaan hadda taana dukaamadoodii iyo ganacsigadii dib u bilowday isdhexgalkii bulshadii shaqadeena inaad socotaa Awdiigle ku sugannahay dadka deegaanka Awdiigle awalba dad waxay ahaayeen iska cabursan oo si xooga lagu haysto maadaama aan ka dulqaadnay nabaadiidkii waxa kala kulanay soo dhaweyn fiican si fiican inoo soo dhaweeyeen anagana waa shacabkii aan u dagaalameynay oo nafteena aan hornay inaan u dhimano wixii caawimaada oo shacabka caawinayna waa si caawinayna maalmaha soo dhan waxa rajeenayna inay soo gaarto taakulan loogu tala galay والله ciidanka xoogda Soomaaliya wuxuu soo gaaro qasaaro ma ahan mujaahidiin waaye dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda dhimanayaan ilaa iyo hadda qasaaraha xageena soo gaaray waa laba askari oo dhimasho wax dhaawacana ma jiro والله cadawga weer ismiidaamina isku soo dayeen maadaama aan ku fashilinay meel aan dhaweyn difaacayni aan ku dhaweyn wax qasaaraha oo aan soo gaaray ma jiro laakiin ayaga sida xog ku heleeno waxa qasaare gaaray ugu yaraan 60 meeyo dhaawacoodana konton kor u sii dhaafa ilaa hadda inta xogta ahayno ilaa hadda waxa ku jirnaa xog arorin markaas magaalada been waxa aragnay xaafado badan bursan iyo lix badan bursan shabaab maadaama ay keeneen in awal shacabka la haddan xoolihi laayaan shacabka Soomaaliyeed waxa uu baaqaynaa dadka nabadiidka ah waxay kala soocayaan malahan waa dad baneystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed anagana waxa diyaar u nahay ina dhiigga ummadda Soomaaliyeed aad difaacano oo dhimano shacabka waxa ka codsan lahayn oo deegaanada hadda aad joogno iyo deegaanada dhammaan ay joogan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku taakuleeyaan wixii allaala iyo wixii xog ah ay ka heli karaan nimanka nabadiidka oo tabartooda si wiiqmeyso taas ka codsanayna shacabka Soomaaliyeed waa aragnay meedadkooda meesha iska yaaleen oo waxay waayeen tabar ay ku qaataan maadaama oo howlgalkan howlgal qorsheysan oo ahaa meesha city waxa meel ku dhow Awdiigle qiyaastii u jirto 4 kiiloomitir oo u ahayd talis oo warbixin hoose ah ku helnay saasana ku aadnay qasaarasna ku soo gaarsiinay ilaa hadda marka maxaa ka qorshaysan degmada Awdiigle
degmada Owdhigle waxay la mid tahay degmooyinkii hore ah u soo dhaafnay qorshaheeduna waa qorshe iska cad oo hadda wax qorshe iska cad waxa faahfaahinayna ma ahan oo hadda deegaanka ku sugannahay waxaan rajaynaynaa dadkii dhibka lagu hayay maadaama aan ka dul qaadnay inaan dib u furno iskoolaadkii oo ardayda deegaanka degan maadaama waxbarashadooda xoogaa iska cariiri ahayd haddana iskoolaadka dib u furnaa rajaynaynaa bismillaah allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sallam waa ku mahadsantihiin SN TV waa sida aad u garab istaagteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheegno in ay ku guuldareysteen damaacigii ama isku daygii macna darrada ahaa ee ay ku soo aadeen kooxda argagixisada ay xarunta ciidanku ku leeyahay degmada Owdhigle horena waa u sheegnay Owdhigle waa joogi doonaa insha Allah shacabkuna horey noogu yeeran waxay yiraahdeen noo imaada tacadiga iyo dhibaatada ay argagixisada ku haysto markay u dulqaadan waayeen annagoo baaqa shacabka iyo ka jawaabayna waa noo yimid waana la joogi doonaa waana difaaci doonaa mar walba bulshada Soomaaliyeed argagixisaduna gobolka Shabeellada hoose iyo Soomaaliya dhan way ka dhamaan doontaa waqti aad u yar haddii Allah wada la ogolaado waxay isku dayay yaryar soo sameeyeen oo iyaga la weynaa laakiin annaga aan agtayda waxba ka ahayn ciidankeenuna ay si wanaagsan uga jawaabeen iyaga oo tusay in aysan waxba ku haynin meesha awoodna aysan ku haysan ilaa shalayto waxaanu aruurinaynay meydadkooda iyo qalabkii ay ka carareen iyo maxaabiis aan ka soo aruurinay maantadan marka wayna soconayaa hawlgalka insha Allah waana ku guuleysanaynaa haddii Allah wada la ogolaado gacan ku haynta goboladaas ay ku sugayeen haddii argagixisada oo dhan iyo degmooyinkaba waana laga saarayaa baaqa shacabkana waan ka jawaabaynaa waana ka jawaabi jiray insha Allah waana gaari doonaa kuwa aan maalmo ka daahnana ha ogaadaan inaan u soo soconno argagixisaduna kuma noolaan doonto insha Allah